kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo dalma Axmidiye ee qodobada wararka caawa kuwooda ugu door korona waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo si adag uga hadashay tacaddi iyo fal arxan darro ah oo ka dhacay degmada Afgooye ee duleedka magaalada Muqdisho qaramada midoobay oo shaacisay in qaar kamid ah shaqaalaheeda Soomaaliya laga helay cudurka coronavirus Kenya oo sheegtay in muwaadin Soomaaliya laga helay cudurka coronavirus madaxweyne Erdogan waxa uu dalkiisa ku soo rogay amar culus iyadoo dalkaasi uu wajahayo xaalad adag qodobadaas iyo qodobo kale oo xiisaha ayaad wararkeena ku daawan doontaan halkani waa dalma Axmidiye wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waad daawadayaal isku soo noqod wanaagsan waa 4 bisha Afraad 2020 Sabti ee aan ku bilaabo wararka isla markaana aan ugu horeysiiyay dawladda Soomaaliya ayaa si adag uga hadashay fal arxan darro ah oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa si adag uga hadlay fal kufsi oo arxan darro ah oo ka dhacay qaybo kamid ah degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose wasiir Maareeye ayaa falkaasi aadka u xanuunka badan isla markaana loo geystay laba gabdhood oo aad u daayar waxa uu cambeeriyay si xooggan isagoo oo ku tilmaamay mid waxwashnimo oo ay geysteen dad buu yiri aan lahayn damiir garasho iyo mid Soomaalinimo toona waxaanu cambaaraynaynaa ereyada ugu adag wax aan bini aadan lagu tilmaami karin lagu cambaareeyo ficilka ugu xun wax sameeyay lagu cambaareeyo yaanu ku cambaaraynaynaa ficilka ka dhacay Afgooye ee lagu waxyeeleeyay loogu xadgudbay laba caruur oo sabi ah waxa halka ka dhacay laguma sheegi karo waxa dadka qaarkiis ku tilmaameen ay yiraahdeen waa kufsi waa tacaddi iyo weerar loo geystay magaca Soomaaliyeed loo geystay shacabka Soomaaliyeed qof kasta oo shacabka Soomaaliyeed ayaa wajigiisa ceeb lagu dhigay xumaan lagu dhigay wax bini aadanka adduunku isweydiiyo Soomaalidu waa nooc bini aadan oo noocee ah ayaa lagu dhigay qof kasta oo Soomaaliya kulligan waynu garanaynaa in waxa halka ka dhacay aanu kufsi ahayn ee uu yahay weerar lagu soo qaaday shacabka Soomaaliyeed uu yahay magac dil qof kasta oo Soomaaliya lagu sameeyay la doonayo in dadka Soomaaliyeed laga dhigo dad aan bini aadan caadi ahayn la doonayo waxa sidaas doonaya maaha Soomaali damiir xun baas la adeegsaday Soomaali damiir xun baa la adeegsaday soddonkii sano ee aynu ku jirnay dhibaatada iyo dagaalada sokeeye bilaash gumaynu jirin dad magaca Soomaaliyeed markuu dira burcad badeed oo markuu dira argagixiso oo markuu dira kufsi oo mar shacabka Soomaaliyeed isku diraan ku dila waa dad aan wax maqlin oo xayawaan ah isdilaya ayaa maalgeliyo waxa sameeya oo dad Soomaaliyeed soo adeegsada dhinaca kale wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku adkeeyay in dawladda Soomaaliya ay ku raad joogto dadkii ka dambeeyay falkaasi isagoo oo hoosta ka xariiqay in la marsiin doono cadaalad lagana qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan dawladda Soomaaliyeed waxay amraysaa ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaan ciidamada qalabka sida maamulka heer qaran iyo kan degmada Afgooye in gacanta lagu soo dhigo dadkii ficilka ka dambeeyay iyo kuwii maalgeliyay ee u qaadanaya magaca Soomaaliyeed inay ku baabiyaan way la soo qabtaa waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka u sheegaynaa in waxa halka ka dhacay aanu ahayn dhaqan Soomaaliyeed inaanu ahayn waxa dadka Soomaaliyeed u taagan yahay diiniyan dhaqaniyan iyo dadnimo intaba waxaanu u taaganahay inaanay ahayn waxaanu la xanuunsanaynaa caruurta Soomaaliyeed sabiga Soomaaliyeed ee la dhibay
waxaanu la xanuunsanaynaa qoyska culimmada Soomaaliyeed waxgaradka Soomaaliyeed waxaanu doonaynaa inay ka hadlaan ficilka bahalnimada ee magaca Soomaaliyeed lagu dilayo loo arko inuu weerar yahay ee aanu ahayn ficil shacbi ma aha waxa la helayaa haddii si fiican loo baaro hay'adihii maalgeliyay la helayaa horay u sameeyeen gabdha yar oo caruur ah saas oo kale u sameeyeen waa ficil soo jiray oo magaca Soomaaliyeed lagu dilo Soomaalidu waa dad diin leh waa dad dhaqan leh waa dad bini aadanka adduunka jooga kuwa ugu ixtiraamka badan ugu deeqsiisan ugu wanaagsan laakiin wala baabiilaya magacooda labadan gabdhood ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Aamina Muuse Axmed oo 3 sano jir ah iyo Sumiya Cabbaas Cumar oo 4 sano jir ah waxaana haatan iyaga oo ku jira xaalad adag lagu dabiibaya cusbitaalka weyn ee Madiina ee magaalada Muqdisho falka naxariis darrada ah ee lagu la kacay hablaha sabiga ah ayaa hadal hayn qiiro leh maalmahan waxa uu ka dhex abuuray bulshada Soomaalida iyadoo oona si adag ay uga falceliyeen dhacdadan foosha xun waatay daawadayaal wali halkaan nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo Dalma Axmidiye iyadoo oo wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Fawziya Nuur Abikar ay xalay goor dambe shaacisay in 2 kiis oo qaba cudurka coronavirus isla markaana uu qof kamid ah ajnabi yahay laga helay dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa uu maanta xaqiijiyay in shaqaale caalami ah oo ka shaqeeya shirkadda gaar loo leeyahay oo qandaraas kule qaramada midoobay laga helay cudurka coronavirus shaqaalahan ayaa waxa uu ka tirsanaa shirkad ganacsi oo gaar loo leeyahay oo la shaqeysa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyadoo oo la raacay hadaba siyaasadda shirkaddan ayaa waxa shaqaalahan lagu sameeyay karantiil saacado kadib markii uu bartamihii bishii Maars ee 2020 kiiskan cudurka ee coronavirus ayaa waxa uu ka mid noqonayaa 2 kiis oo wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Fawziya Nuur Abikar ay habeennimadii xalay ahayd shaacisay shaqaalaha caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa wali ku sii jiraya wada shaqeynta iyo xidhiidhka ay leeyihiin wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxaana socda baadhis la xidhiidha sidii loo ogaan lahaa qof kasta oo laga yaabo in uu ku dhaco cudurka coronavirus ka hor karantiilka lagu sameeyay qofkan shaqaalaha ajnabiga ah ee ka soo laabtay dalka dibadiisa dowladda dalkaasi Kenya waxa ay sheegtay in 11 ruux oo cusub maanta oo sabti ah laga helay cudurka coronavirus kuwaas oo ku jira muwaadin ka soo jeeda Soomaaliya guud ahaan tirada cudurka coronavirus ee uu soo ritay dalkaasi Kenya ayaa waxa hadda lagu la gashay 112 ruux oo halka tirada dhimashadu ay gaadhay 4 ruux qofkii ugu dambeeyay ee cudurkan ugu geeriyooday gudaha dalka Kenya ayaa waxa uu noqday ilmo yar oo 6 jir ah kaas oo ku dhintay cusbitaalka Kenyatta National ee magaalada Nairobi guud ahaan dad gaaraya 1433 ruux ayaa maanta oo kaliya laga baaray cudurka coronavirus sida ay sheegtay warbaahinta dalka Kenya oo soo xiganaysa wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Kenya tirada guud ee dadka caalamka ugu geeriyooday cudurka coronavirus ayaa waxa ay sidoo kale gaadhay 53 ruux iyadoo oo dadka cudurkaasi soo ritayna ay kor u dhaafeen 1 milyan oo ruux wali halkaan nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo Dalma Axmidiye qodob wareedka ugu dambeeya wararka Soomaalida iyo Dalma Axmidiye madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa muwaadiniinta dalkaasi Turkiga waxa uu ku soo rogay bandow dadka ay da'doodu ka yartahay 20 sano taasoo qayb ka ah tallaabooyinka ay dowladda dalka Turkigu kaga hortagayso faafitaanka cudurka coronavirus oo dalkaasi isaguna saameeyay bandowgan khasabka ah ayaa la fuliyay saqdi dhexe ee xalay kadib markii madaxweyne Erdogan uu jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay taasoo uu kaga hadlayay xaaladda adag ee dalkaasi Turkigu wajahayo madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay in la xidho xuduudda 30 magaalo isku socodka gaadiidka dadweynaha marka laga reebo buu yiri kuwa wada qorshayaasha muhiimka magaalooyinka bandowga lagu soo rogay ayaa waxa ku jira magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Turkigu ay ka mid yihiin magaalada Ankara ee caasimadda iyo sidoo kale Istanbul oo magaalada ganacsiga ee dalka dowladda dalka Turkiga ayaa waxa horay dadka ay da'doodu ka weyn tahay 65 sano waxay ku amartay inay ku ekaadaan guryahooda isla markaana aysan soo bixin xaaladda jirta awgeed tirada uu saameeyay cudurka coronavirus ee dalka Turkiga ayaa waxa iminka kor u dhaaftay 20,000 tirada dhimashaduna waxa ay gaadhay iyaduna 425 ruux tirada ka bogsatay dalkaasi Turkiga cudurka coronavirusna waxa ay gaadhay 484 ruux qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararkii Soomaalida iyo Dalma Axmidiye intaan warkan war lamida ku kulmi doono nabadgelyo